xeendabka sida weyn loo ilaaliyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayuu dalaq dhahay isaga oo dul maraya darawalka xildhibaanad hore waxa uu lahaa hal ujeedo oo ah dilka Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta oo xilligaasi maxbuus ahaa suurtagalay waa ku sheegano wuxuu ku suurtagalay adeerkaygan gaariga buruufta iyo qooqanta uu wado 24 saac gudaheed gashaa ma samee ani marka istilaac sameynayna istilaac lagu sheegay saddex maqsad ku aaba كو ماشي لقلاي صور إنا صور ككهمت لو ماشي إنا تحك كفلان أكبحيسو صور كوا كقاضي وليبا صور جودها هاجري أنت نهبين كي ماشي كرو صور أنك قاضي واجري صور كلاته مركان ماشي مرة صور أنك قاضي واجري كجارنا يرنيهم مختار سوا مرك جارنا مكم مختار أرنديس بالله فرصة دوينا وارك معنا فهمت كحيرنيهم أني هون كان دولة مسكين كم حي وايزتا مركز سويري ونحن كعشوا سيدا دريسين عسكر نفل حتى موارديس فهمت عسكر نفل حتى موارديس عسكر توارديس ما بين كاسو السداد تطبع عسكرية ورنا وارديس ولا مركا أنت مركا اللي جسوا قدوة أنا الشقدي دي وانا مي مقطع وحا مركا ما دي سيلو جلا أيضا تاجنتها أنا مركا بلا استطلع كوسمي قيب تجود يوحي مقطع يو مختار هيك وزارتنا arrimaha gudaha iyo amniga oo tootane team kale taa loo diray marka teamkaas kale taa ku shaqalaha shaqada marka ani markaan soo gabagabeeyay ii soo dhamaatay ay u badan tahay shaqadii in macna as practical ahaan loo sameeyo waa tii ma ogtahay aniga bardooyina la diray